marxaban saaxiibadeeyow ka hor inta aan u gudagalin barnaamijka waxaan idinka codsanayaa in aad subscribe noo saartaan channelka sidoo kale like-ta ayaa noo ah dhiirigelin mahadsanidin mararka qaar insaanku waxa uu raadiyaa oo uu daba cararaa waxyaabaha muuqda sida quruxda iyo hantida waxaan aragnaa inta badan marka laga hadlayo dumarka waxa ay u dooqdaan midka ay nolosha la wadaagayaan in uu ahaado mid hodan ah oo hantilo ah waxaana ku filan oo ay ku qiimeeyaan midkaas inuu leeyahay gaari qurxoon oo qaali ah kuna labisan yahay dhar qurxan wax ahmiyad ahna ma siiyaan shakhsiyadiisa waxaan hubaa qisada aan idinkugu soo gudbin doono muuqaalkan in intiina idaawanaysa badankood ay ku soo dhacday haddaba ila socda ilaa dhammaadka muuqaalka haddii aad ka heshana like saar kuna sii sheer garay Facebook iyo baraha bulshada Max waxa uu ka shaqeeyaa cilad bixinta internetka waxa uu ku shaqeeyaa mushaar aad u kooban oo aan ka badnayn nolol maalmeedkiisa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu wada kaga hor yimid gabar ay yaraantooda isku lahaayeen taas oo san arag muddo sanado ah waxaan isugu dambeysay waqtigii ay ka qalin jabinayeen dugsiga sare waxa uu la kulmay xilli uu ku sii socday gurigiisa waana uu soo xasuustay isla markiiba si aad ah ayuu ula yaabay iyadu waa gabadhee weligeed wax ihtimaam ah ma siin xilligii ay isku galaaska ahaayeen maxaa yeelay jirkiisa muuqaalkiisa iyo labiskiisaba waxa uu ahaa mid daciif ah balse Max markii uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu go'aansaday in uu shaqo ka qabto jirkiisa oo isdhiso waxayna taas naftiisa ku abuurtay kalsooni badan markii uu arkay gabadhii isku galaaska ahaayeen ee inkiri jirtay markaan si kalsooni ku dheehan ayuu dhankeeda ugu dhaqaaqay waana uu isku sheegay in uu yahay Max midba kan kale ayuu uga sheekeeyay noloshiisa iyo wax uu qabto gabadha ayaa u sheegtay in ay u safartay wadamo fara badan taasoo ku xiran shaqadeeda waqti aad u wanaagsan ay qaateen waxayna wada taagnaayeen saacado badan iyagoon ku baraarugsaneen balse markii ay weydiisay shaqadiisa iyo waxa uu qabto una sheegay in uu ka shaqeeyo hagaajinta internetka mushaar yarna uu qaato waxa isla markiiba isbedelay wajiga gabadhii Maxna waa uu dareemay wajigeeda laakiin waa uu iska dabaaliyay si la yaab leh ayay u fiirisay saacadeedii waxayna ku tiri alla waan ka xumahay waxaan lahaa balan muhiim ah waa in aan si degdeg ah u dhaqaaqaa Max si aad ah ayuu u murugooday waxaana uu ku yiri ma laga yaabaa in aan mar kale kulanno waxay ku tiri haa waan kulmi doonaa waxay siisay ciwaankeeda Facebook si uu halkaas ugala soo xiriiro maalinkii xigay Max waxa uu fariin ugu diray ciwaankii ay siisay waxaana uu qoray sida uu ugu faraxsan yahay ama ugu faraxsanaa waqtigii uu la qaatay shalay markii ay wadada ku kulmeen isla markaasna uu rajaynayo in ay mar kale kulmaan waqti badan ayuu sugayay in ay ugu soo jawaabto fariintiisa maalinkii xigay ayuu haddana fariin kale u qoray sidoo kale looma soo jawaabin sidii hore si lamid ah sidaas ayayna xaalad ahayd maalmo isbuucyo Max waxa uu fahmay xaaladda waxa uuna go'aansaday in uu iska iloobo kana takhaluso gabadhan uu calmaday ee aan u soo jeedin markii ay ogaatay in uusan ahayn taajir ama hantiile waxa uu dareemay niyad aad u xoogan laakiin murugtiisa iyo wax walba oo uu dareemay waxa uu ku qarsaday laabtiisa ilaa laga soo gaaray maalin maalmaha ka mid ah isagoo ku socda wadada dhinaciisa uu soo istaagay gaari aad u qurxan qaalina ah darawalkii waday ayaa ku yiri ma igu hagaajin kartaa ciwaankan Max ayaa isku dayay in uu hago laakiin uma suurtagelin balse waxa uu sheegay in uu awoodo in uu raaco isla markaasna uu wadada tusiyo darawalkii gaariga tay ayaana ka aqbalay wayna israaceen intii ay ku sii socdeen wadada Max waxa uu arkay gabadhii uu calmaday ee inkirtay oo gacanta haysata nin kale waxa uu darawalkii ka dalbaday in uu xawaaraha gaariga qaboojiyo si tartiib ah u socdo darawalkii waxa uu wajiga Max ka dheehanayay walwal iyo walbahaar waxaana uu su'aalay waxa ku dhacay Max ayaa si degdeg ah u sheekeeyay qisada iyo xaaladiisa darawalkii gaariga lahaa ayaa ku yiri isug waxaan u dhigi doonaa darsi aysan weligeed iloobin waxa uu baabuurkii ku horbaakimay gabadhii horteeda iyo ninkii la socday waa uu ka soo degay waxaana uu dariishada ka furay Max waxaana uu ku yiri isagoo ka dhigaya sida booskiisa oo kale mudane ma kuu soo laabtaa mise halkan ayaan kugu sii sugaa dabcan gabadhii indhaheeda wixii ay arkeen dhagaheeduna maqleen waa ay rumaysan weysay maalinkii xigay Max waxa uu la yaabay
tobanaan fariimo ah oo ugu yimid gabadhii inkiraysay muddada dheer, waxaana fariimaheeda ay ku weydiisay xaaladdiisa. Sidoo kale waxay u sheegtay in ay dhowr mar isku dayday in ay uga soo jawaabto fariimihiisa, laakiin mar walba ay mushkilado la kulmaysay. Max isagoo si aad ah u xanaaqsan ayuu u jawaabay, waxaana u sheegay in uusan xasuusanba qofta ay tahay. Max waxa uu dareemay in uu soo ceshtay karaamadiisii markii hore ay la tagtay middan maanka yar ee damaca badan. Sidii ay ugu ciyaartay dareenkiisa iyo karaamadiisa ayuu isagana markiisa ugu jawaab celiyey mid u dhiganta. Maxay tahay aragtidaada ku aadan qisadan? Ma jirtaa qof idinka mid ah oo ay horay ugu soo dhacday? qaybta commentiga ku soo qor haddii ay ku soo qabsatay. Sidoo kale nagu kaalmeeya in aad like saartaan muuqaalkan kuna sii sheer garaysaan baraha bulshada. Mahadsanidin.